aad u qurux badan maanta it's so beautiful and waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan Somalilanders halkan isku yimid rag iyo dumar and dhalinyaro iyo waayeel aad iyo aad bay noo farxad gelisaa markaan aragno dadkayagoo mida oo meel keliya wada jooga oo isku afa oo isku qalbiya oo isku dareen ah heestii calanka heeskaan ku darsanayaa heestii askariga marka ay Hargeysa askarigii biliiska ciyaarayay Somaliland waa عاد صوب وعد عن صعبكو قرين قرين لما نروح السلام يا أصحابي إذا كتبت ميل ولا مريكنا and Canada all over the places Ontario it's a pleasure to be here today and thank you very much. Honorable members, distinguished guests, ladies and gentlemen, brothers and sisters, I want to express my gratitude for the privilege of addressing this important gathering of Somalilanders who travel from different states to come together and discuss important topics for Somaliland. Thank you all for coming here today. I want to extend my warmest thanks to the organizers and all the volunteers. It is very inspiring to see young people taking leadership roles in putting together this conference. This is the sort of grassroots community activism and organization we need. Somaliland has been a grassroots, bottom-up state building process by itself. Their commitment shows that Somaliland has a bright future. Let's give them a round of applause to the SLPA. Let's give a round of applause to President of Somaliland, Musa Bihi Abdi, who led this delegation. Let's give a round of applause to the military and armed force in our borders for securing our security. Let's stand up for them. And sitagna askarteena maalin walba inoo suurta gelisa inaynu seexano habeenkii cadowga inaga celisa si ay dalkeennu iyo qarannimadeennu mid jirta u ahaato. Aad baad u mahadsantihiin. My fellow Somalilanders, honorable guests, as we conclude our historical visit to the capital of the United States, I want to share with you some high-level updates from our meeting so far. These talks have been in the making for years, and thanks for the Ambassador Bashir God and other Somalilanders who helped him along. I want to thank all the people who worked behind the scene and made this possible. As we met with officials from the U.S. government, both from the executive and legislative branch, Somaliland repetition precedes. The commitment from good governance and democracy had iyo jeer aynaan rabin inaynu dib uga dhacno. Halka aynu maanta joogo ma aha inaynu dib uga dhacno. Waa inaynu hore u soconaa. yaynaan isku qaldan siyaasadda dibadda iyo siyaasadda gudaha. Geelayga siyaasadda dibadda hayga qaldina geelina siyaasadda gudaha. Geelana aynu kala jirano markaynu dibadda joogno waxaanu nahay ummad keliya oo isku cod ah oo isku qalbi oo wax kaliya wada doonaysa. Cadowgu dooni doona inuu kala qaybiyo oo yiraahdo dhexda darafyada maxaan ku raacdaa all this waxaa jirta kelmad Faransiisa oo comprendre dhowr marka Faransiiska dhowr macno ay leedahay. Markana halo la Somaliland comprend l'est et l'ouest. waxay yeelanaysaa laba macno. Macnaha ugu horeysa waxa weeye
Somaliland waxaa ka mid ah bari galbeed iyo dhexda macnaha kale leedahay component waa understand mid waa inclusiveness midna waa understand la Somaliland component marka la yiraahdo saddex qaybood ee dalku yahay gudaha iyo hareeraha waxay ka Somaliland way fahansantay qadiyadaha dhexda iyo baalashada waxaa taas ka dhigantay waxaan nahay ummad kaliya oo isku mid ah. There's always room for improvement. Hadii jeer way wanaagsantahay inaan sii kor sii qaadno sii kordhino aynu sii wadno in dadaalka aynu dalkeena ugu jirno in sanadadii ugu dambeysay waxaynu hadalaynay xasuuqii wixii inoo geystay wixii dhibaatay nagu dhacday anigu waxaan qofka ugu horeeyo leh I will not forgive, I will not forget. Laakiin dagaalkan imaka aynu galaynaa waa mid kale kaynu galaynaa waxa weeye adduunyada saynu uga iibin lahayn Somaliland hadday noqoto diblomaasiyad hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto social cultural dhinac walba inaynu Somaliland tusno adduunyada inaan ahayn dad baahan oo hand out ku nool inaynu nahay dad 30 sano isku filaaday oo dhulkii oo la baabiyay maanta dib u dhistay inaynu nahay dal kari kara ina khayraadkiisa ka faa'iideystaan oo ka iibiyaan adduunyada khayraadkiisa dad u baahan inay tacliinta iyo caafimaadka iyo abaaraha soo noqonaya inay la dagaalamaan adduunyada waxaan la saaxiib noqonaa wax qof albaabkeenu qof walba uu furay anybody as long as qof walba og yahay inaynu nahay dal gaar ah xaq u leh in uu conditionadiisu isaga la yeelo oo aan lagu xirin strings kale no other strings attached aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa hadalkan si dheer dooni maayo waxa fara badan dadka doonaya ka qayb galaan aad iyo aad baan mahadnaqayaa aad iyo aad